الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وصحبه أجمعين وعشركي أفر إيا الصدنات إيا كتاب كأني حاد الأرواح إلى بلاد الأفراح للإمام ابن القيم رحمه الله. خدموا أهل الجنة تدك أهل الجنة يا أخدمية يا أذيقة ربي بوحولي يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين وحا إلهي أذيجي ولدان مخلدون wiilal alla waariyey oo koobabkii iyo kildhigii jalamed bay dadka qaar kildhi bay yidhaahdaan iyo ibriiq iyo dad qaar ku magacaaba iyo waxyaabihii maaragtay ka'sigii oo khamradii ilaahay subxaana dadka ahlujannada ugu talagalay oon tii adduunka oo kale ahayn saasaa loola dul joogaa saasaa loola kortaaganya suuro dhoweyn iyada oo mina u dhoweyn laakiin markaaad fiiriso hoteelada iyo meelaha waaweyn oo makhaayadaha waaweyn oo caalamiga ah markii aad cunto u aado waxaa jira dad dhalinyaro ah oo wada da-yar oo saa kuu dul joogaya intaad cuntaynayso oo dhan maxaan kugu og taagan yihin intaad cuntada aad ka baxayso ood halkaa ka tegayso halkaas iyagana laga yaaba inay taagnaadaan waxay fiirinayaan keli waxaad u baahantahay inay kuu keenaan bay rabaan ood adeegsato ayaa maarata walidaalika baa miisaska oo kale dadka dee waxaa garanaya dibadaha iyo inta badan jooge intaas oo miisba waxaa ku qoran dad baa ku qoran gaar ah oo iyagu intaas u khidmeynaya oo dul taagnaanaya. ayib ibnu kathiir raximahullah baa wuxuu leeyahay wildaanun min wildaani aljanna waa wiilal kuwii jannada ah waa kuwa mukhalladuun oo la waariyey oo xaalad keliya unbay ku sugnaanayaan. maxaa laga wadaa? isma bedelayaan, cimrigoodu isma bedelayo, da-doodu weynaan mayso. waa ilaahay subxana wataala saas ugu talagalay. alxuuru lciinu fi ljanna, horeyna qeyb baynu uga sheekaynay. xurulciinta jannada iyadana ilaahay waa khalqi uu alla u abuuray zawjaad oo gaaya fi lxusni waljamaal walnadaara walbahaa oo maaragtay qurux iyo qiimaba ilaahay uu u dhammaystiray, jannadana lagu abuuray oo kuwii adduunka aan ahayn oo xurulciin la yidhaahdo ayuu rabbi subxaana watacaala ku tilmaamay. kadalika wazawajnaahum bixuurin ciinin, marka waxaan u guurinaynaaba dadka ahlujannada ah zawjaad oo xuurulciina baan u guurinay. alxuurulciin waxaa loo yidhaahday waa gabdho indhahoodu cadcad yihiin, sawaadka iyo madowga ka dhex muuqda isha dhexdeedana uu aada u muuqanayo, ayna indhahaasi balbalaaran yihiin oo maarata indhaha ballaaran waa qurux baan filayaa taqriiban yacni sida ka muuqanaysa. ayib waxaa loogu talagalay ilaahay subxaana watacaala dadkiisa inuu ku marti qaado isagoo oo haddana qof kasta aynu hore usoo sheegnay oo jannada ugu talagalay oo raggiya inuu laba zawjo oo kuwii adduunkana uu helayo. oo weliba gabdhaha horey waxaynu usoo sheegnay haddaad xusataan inay gabdhaha adduunku ka fadli badan yihiin ama ka qiimo badan yihiin kuwa jannada lagu abuuray ee xurulciinta ah. waa horey baynu u sheegnay haddaad xusataan. wuxuu alla ugu talagalay dadka mutaqiinta ah, ina lilmuttaqiina mafaazan xadaa'iqa waacnaaban wa kawaaciba atraaban baa lagu magacaabay. waa gabdho kawaacib iyo atraab. alkaacib yani waxaa la almar aljamiila, waa gabadha quruxda badan oo soo muuqda, yani naasaheedu ay muuqanayaan, yani ay muuqanayaan oo kor usoo muuqdaan usoo taagan yihiin ayaa la yidhahdaa kawaacib. atraabna waa gabdho isku wada da-ah oo mar uu tilmaamayay ibnu kathiir iyo ibnu cabaas baa tilmaamayay, wuxuu yihi kulligood da-dooda ayaa 33 ayay wada u muuqdaan kulligoodba. rabbi wuxuu le inaa ansha'naahunna inshaaa, waan soo dhalinaynaayo gabdhaha xitaa fajacalnaahunna abkaaran curuban atraaba, waxaan ka dhigaynaa gabdho gabadhnimadoodii qabta oo raggooda jecel oo isku wada da-ah oo da-da aan sheegnay 33 taqriiban ay mufasiriintu ku tilmaameen. kuwa aan lasoo taabanin wey, lam yatmithunna insun qablahum walaa jaa, xuurun maqsuuraatun fi lkhiyaam wey, walahum fiiha aswaaju mutahara, waa gabdho daahira oo halkaa guryahoodii lagu gaabiyey oon indhaha taagaynin meelo kale usii soconayni wey. rasuulku waa kii ku tilmaamayay walow ana imra'atan min ahli aljanna, hal dumar oo kuwa ahlu jannada ah
haddii ay dadka adduunka jooga hal mar saa usoo fiirin lahayd way ifin lahayd, kulligood way wada ifin lahayd. Yani waxa weye iftiin bay noqon lahaa, adduunka dhan baa noqon lahaa. walanasiifuha calaa ra'siha, waa inagu horeyna usoo sheegnay, khayru min addunya wamaa fiiha, waa xadiis imaamu bukhaari soo saaray. ee masarka ama gambada ay madaxa ay ku qabto ayaa wuxuu ka khayr badan yahay adduunka iyo inta ku jiro oo dhan ayuu ka khayr badan yahay. cadad aswaaj aljanna, qof kasta waxaan sheegnay kuwii adduunkana 2 ayuu ka helayaa. xurul ciintana intii ilaahay subxaana watacaala ugu talagalay, shahiidka oo kale isaga waxaa la yidhi inuu helayo 72 ayuuba isagu sii dheeryahay oo rabbi uu siinayaa. ilaahay subxaana watacaala dadkiisaas ahlu jannada ah allah haynagu daro, rabbina subxaana watacaala ahalkeeda haynaga dhigo. wajazaakum allahu khayr, baarak allah fiikum.